haddii aad rabto inaad hesho taariikhda maalinka la joogo adigoo adeegsanaya MS Excel marka hore waxaad tagaysaa seelka aad rabto inaad taariikhda ku qorto kadibna waxaad qoraysaa calaamadda equal kadibna waxaad qoraysaa today markaad qorto bracket ayaad furaysaa waadna xiraysaa kadibna enter ayaad leedahay enter markaad tiraahdo waxaa kuu soo baxaya taariikhda maalinka aad joogto haddii aadan raban inaad formula adeegsato waxaad adeegsan kartaa shortcut oo keyboardka waxaad isla qabanaysaa control semicolon kadibna sidoo kale waxaa kuu soo baxaya taariikhda maalinta aad joogto sidoo kale waxaa muhiim ah inaad ogaato labada wado aan adeegsanay inuu farqi yar u dhaxeeyo haddii aad adeegsato wadada formulada aan soo qornay taariikhda kuu soo baxaysa waxay noqonaysaa mid updated ama mid isku bedelaysa hadba taariikhda maalinka aad joogto halka wadada shortcutka aan adeegsanayna taariikhda kuu soo baxaysa ay noqonayso mid hard coded ah ama mid aan isbedelaynin